وحنهاي وديقة جسيقة وحنهاي ونقى معلنك وحنهاي وديقة جسيقة وحنهاي ونقى معلنك واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي بريبا أو بحلقة ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبتي وحنبار واجبتيتا daawade kusoo dhawow janalka masraxa official oo aan maantay aan bilaabayno fasalka labaad ee dugsiga sare maadada chemistry-ga cashirkii koobaad chapterka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa historical development of the periodic table horumarinadii taariikheed ee laga sameeyey periodic table-ka oo ay kaga hadleen saynisyahano fara badan laakiin waxaan soo hormarinaynaa nin lagu magacaabo Dobrina Trade oo u dhashay waddanka Germany waa nin ku takhasusay maadada chemistry-ga ahna dadka sida fiican u bartay maadada chemistry-ga muxuu ka sheegay taariikhii horumarineed ee periodic table-ka ayaan rabnaa inaan wax ka taabanno daawadaha qiimiga badanow intaanan sharaxaada u gudagelin waxaan kaa codsanaa inaad subscribe saartid komboleelkan aad furatid si casharka ku xiga kugu soo dhaco Dobrina Trade in the year 1829 sanadku marka waa 1829kii nin lagu magacaabo Johann Wolfgang Dobrina a German chemist waxaa laga wadaa waa qofka barta the person who study the subject of chemistry waa qofka barta maadada chemistry-ga ee sida fiican u daraaseeyay waxna ka sheegi kara ayaa waxaa loo yaqaanaa chemist marka ninkan waa German chemist waa nin u dhashay waddanka Germany-ga chemistry-gana wax fara badan ka sheegay ninkan aan ka hadlayno first observed markii ugu horreeyay wuxuu ku horgalay some similarities in the elements curiyaasha qaar waxyaabaha ay isaga mid ka yihiin basin asagoo ku saleeyay on their properties astaamahooda then kabacdi hiidan waxay u taagan tahay ninka lagu magacaabo Dobrina he tried wuxuu isku dayay to arrange inuu isku habeeyo these elements curiyaashani with similar properties ee astaamaha isku midka leh into a group of 3 elements group oo saddex curi iskula socda ayuu sameeyay wuxuu group saddex curi iskula socda and he called wuxuu ku magacaabay wax la yiraahdo trade salaano kale markii koobaad curiyaasha qaar astaamaha ay ka midaysiin iyo soo ka fiirinaya sifadooda laakiin markii dambe wuxuu isku dayay inuu isku habeeyo curiyaashan leh astaamaha isku midka ah waliba wuxuu u sameeyay into a group of 3 elements group ay u sameeyay oo saddex curi iskula socda salaano kale oo ka wado oo arintaas waxa lagu magacaabay saddex curi iskula socda wax la yiraahdo trade sala trade 1 trade 2 trade 3 wax la yiraahdo ayuu sameeyay waxa meeshan ka muuqata the elements curiyaasha in the same trade curiyaasha trade isku mid ah ku jira salaano kale waa arki doonaa curiyaal waxa jira trade isku mid ah ku jira waxay leeyihiin similar properties astaamo isku mid ah salaano kale haddii trade 1 ay ku jiraan oo same trade ay ku jiraan trade isku mid ah trade 1 ay ku jiraan similar properties leeyihiin hadday trade 2 ku jiraan trade 1 ama trade 1 ay ku jiraan oo curiyaal saddex curi isku mid ah similar properties leeyihiin trade 2 ay ku jiraan same trade ay ku jiraan waxa waaye similar properties astaamo isku mid ah leeyihiin trade 3 ay ku jiraan trade 3 oo same trade isku mid ay ku jiraan similar properties leeyihiin sala trade 1 waa kuwana fiir marka trade 1 elements curiyaasha ku jira trade 1 waxay leeyihiin astaamo isku mid ah lithium sodium potassium are all metals kuwan dhamaantood waa bir ana valence of +1 ana waxay bixiyaan hal electron ay lose gareynayaan ana 1 electron ay lose gareynayaan waana metals waana group 1 waa alkali metals ku la yiraahdo trade 2 elements-ka waxa leenahay waa groupka labaad ee periodic table ku jira
waana bir waa alkaline earth metals groupka la dhaho ayuu ka soo qaatay saddex xuriye saddexdu soo qaatay waa calcium strontium iyo barium are all metals dhammaantood waa biro saddexdan xabo dhammaantood waa maxay waa biro and have valence of +2 ay leeyihiin marka ninkan wuxuu ka fiiriyey lithium iyo sodium iyo potassium oo gurbada ku jiraan wax allaale wixii gurban ku jira astaamo isku mid ayay leeyihiin ayuu dhahay ninkan macnaha wuxuu ka wado halkaasuu kala jeedaa wuxuu dhahay lithium iyo sodium potassium waxay leeyihiin similar properties isagana wuxuu geliyay trade 1 maadaama trade 1 ay ku jiraan u dhahay lithium iyo sodium iyo potassium periodic table ku arki doontaa waxay ku jiraan trade isku mid ay ku jiraan calcium strontium barium waxay ku jiraan meel isku mid ay ku jiraan waxa kaloo ku saaray waxyaabahan oo dhan wuxuu dhahay saddexda oo trade 1 iyo trade meesha hadda trade 1 walaashana u jeeda trade 2 walaashana trade 3 waxa chlorine iyo bromine iyo iodine group 7 halogens wuxuu ka soo qaatay iron metals oo kuwan birta ayn ana valence of -1 ana negative hal xaba ay bixiyaan sala waa kana sala trade 1 waa kana trade 2 waa kana trade 3 na waa kana markii tradeska uu sameeyay oo hadda aan meeshan ka hadlayno tradeskan markuu sameeyay when he arranged markuu isku habeeyay the elements oryash in the same trade oryaashii markuu isku habeeyay same trade sala ku wuxuu geliyay trade 1 kan uu geliyay kuwa muxuu geliyay kuwa kana waxa la yiraahdo trade 1 ayuu geliyay waxa u jeedaa trade 1 salaano kale chlorine bromine iodine okay salaano kale kan muxuu noqonaa kana u jeedaa iska dhaaf salaano kale trade 1 intaan when he arranged markuu isku habeeyay in the same trade so trade 1 qaabkan u habeeyay trade 2 qaabkan u habeeyay trade 3 qaabkan u habeeyay sala calcium strontium barium intan wuxuu dhahay wax trade 3 astaamo isku mid leeyihiin oo same trade ku jiraan waa similar pro astaamo isku mid leeyihiin trade 2 waxay ku jiraan same trade isku mid ku jiraan oo trade 2 chlorine bromine iodine waxay leeyihiin similar pro astaamo isku mid ah trade 1 oo kale lithium sodium potassium trade 1 ay ku jiraan waxay leeyihiin similar properties astaamo isku maadaama same trade ku jiraan in order of their increase in atomic mass si macnaha ay u kala badanayaan atomic mass salaana kale atomic mass way kala badan yihiin lithium atomic mass keeda waxa ka badan sodium atomic mass keeda kasii badan atomic mass keeda si kala mid ku hooseeya uu kasii badan yahay and he observed wuxuu ku galay ninkan that the atomic mass ay ku galay wuxuu ku galay atomic mass of the middle element ee curyaha dhexe wuxuu raadiyay culayska curyaha dhexe raadiyay culayska curyaha dhexe lithium iyo potassium wuxuu raadiyay culayska curyaha dhexe oo sodium oo kale kana wuxuu raadiyay barium oo kale qaabku u abuuray arki doona hadii ay yiraahdo fiiri he observed wuxuu ku galay that atomic mass culayska of the middle element curyaha dhexe culayskiisa uu ku galay wuxuu ahay culayskaas dhexe curyaha dhexe culayskiisa approximately lisan half of the sum kala bar wadarta of the masses kala bar wadarta culeysyada curyaha koobaad culayskiisa iyo curyaha ugu dambeeya culayskiisa oo la kala baray in each trade oo la kala baray trade isku midka ah salaano kale curyahan oo first kan waay iyo curyaha labaad labada la isku daro marka curyahan koobaad culayskiisa iyo curyahan labaad culayskiisa la isku daro maxaa soo baxaya kala bar wadarta culeysyada curyaha koobaad iyo curyaha ugu dambeeya last element in each trade first waa curyaha koobaad and the last ina maxaa curyaha ugu dambeeyo ah k labadooda marka la isku daro waxaas wadarta ka soo baxda oo kala bar noqon doonta ayaa waxa qaadan doona wax la yiraahdo sodium tusaale waa arki doonaa ayadoo laga shaqeynayo ayaan arki doonaa daawadaha qiimaha badan oo inaad subscribe saati isku day kumbaleelkana afrodi si casharada ku xiga ku soo dhacaan marka salaano kale lithium kale culayskeeda waa 7 atomic mass waa kana arintan inta badan 1850 ayaa si fiican inta badan looga hadlay ninkan lithium waa 7 sodium 23 potassium marka increase atomic mass way kala badan yihiin mid ku hooseeyo maxay ka badan yihiin marka wuxuu sameeyay the first element curyaha ugu horeeya ah oo lithium
first element f kusoo gaabo f u qaado first element curyaha ugu horeeya kan waxa u qaadataa l oo ah last element curyaha ugu dambeeya labadu wuxuu sameeyay uu isku dara marka 7 iyo 30 iskaal isku daray wuxuu u qiibiyay 23 marka culayska curyaha koobaad iyo culayska curyaha labaad waxa ka soo baxay celiskooda markii loo qeybiyo waxa ka soo baxay kala bar wadarta waxa soo baxday kala bar wadarta curyaha koowaad curyaha labaad la isku qeybiyay kala bar ayaa ka soo baxay tusaale ahaan oo kale markii labadan la isku qeybiyo midna waa 39 maxaa soo baxay 23 ayaa soo baxay oo muxuu raadiyay the middle element curyaha dhexe ayuu raadiyay example of the binary list ayaa rabnaa in ka hadalno tusaale ahaan oo kale waa kana fiiri group 1 waa kana hadda fiiri hydrogen lithium sodium rubidium cesium hadda ninkan ciladiis periodic waxa kamid ah hadda tusaale ahaan oo kale trilion oo kale wuxuu soo qaatay lithium sodium potassium maxaa ka sii hooseeya rubidium cesium ma ka sii hooseeya rubidium hadiiba oo badhaxaba kuwan waa isku astaan rubidium cesium sifa lamid ah ay yeela doonaan oo arki doonaa ciladaha dobrinner ay raaci doontaa hadii ilaahay nasba qadiyo tusaale ahaan oo kale group 2 oo kale wuxuu ka tagay beryllium magnesium ka soo tagay wuxuu ka soo qaatay saddexdan ka soo qaatay inaas wuxuu ka soo qaatay saddexdan meeshta taalo ka soo qaatay wuxuu ka soo qaatay saddexdan trilion wuxuu ka soo qaatay saddexdan oo ka soo qaatay soo marka ina fahmi karto isku day waxa kale oo ku soo haray tritium wuxuu ka soo qaatay chlorine bromine iodine ayaa ka soo qaatay muxuu ka soo tagay fluorine uu ka tagay wuxuu kale ka tagay wax la yiraahdo acetine uu ka tagay fiiriya marka wuxuu sameeyay fiiri meeshan calcium strontium barium ka ugu sareeyo ka ugu hooseeyo isku daray wuxuu u qeybiyay laba maxaa ka soo baxay 8.5 macnaha celcelis ahaan culayska the middle element la helo ama wax ka agdhow in la helo ay iska la ninkan la yiraahdo ninka lagu magacaabayo Dobrina wali waxaan ku guda jirnaa casharkii Dobrina salatril 1 saddexda curyaha ku jirta salaano kale waxaan rabnaa inaan raadino atomic mass ka curyahan waa sodium iyo lithium salaano kale waxaan rabnaa inaan raadino wax la yiraahdo average mass waxaa lagu helaa the first element curyaha ugu horeeya and the last element curyaha ugu dambeeya la isku daraa maxaa loo qiiminaa labo waxa ka soo baxa maxay noqon doonaan marka middle element ay noqon doonaan average maxaa curyaha ugu horeeya waa maxay waa kan iyo curyaha saddexaad maxaa la soo saaraa marka curyaha labaad oo dhexda ku jira ayaa la soo saaraa kan dhexda ku jira ayaa la rabaa in la soo saaro okay kana maxaa la rabaa in la soo saaro culayska second see loo soo saaraa mantaqaan waxaa la isku qaybinaa midkan iyo waxaa la isku daraa iyo midkan kan saddexaad la isku daraa markii la isku daro maxaa loo qaybi doonaa laba salaam waxaa la leeyahay 35.5 lagu daray tusaalahaan oo kale fiiriya meeshan ya waa kan ayaa waxaa la leeyahay 35 waxaa la leeyahay curyaha koowaad maxaa waaye 35.5 lagu daray maxaa 127 maxaa loo qiiminaa labo iyadoo saan looga shaqeynayo dib u laabo casharka haddaan slide kan ka horeeyay ayay ku jirtay marka maxaa la soo saaray marka tirada ka soo baxda waxay noqon doontaa the middle element curyaha dhexe culayskiisa ay noqon doontaa curyaha dhexe culayskiisa ayay noqon doontaa kana maxaa samayn kartaa 40 waxa lagu daraa 137 lagu daraa laba loo qiiminaa adii tiradan tira ka agdhow soo bixida marka ama ka badan ama ka yar salaano kale kan waxa laga rabaa average mean of the middle element ya laga rabaa middle elementiga curyaha dhexe ayaa soo laga rabaa phosphorus sal 14 iyo waxa isku daray 25
laba u qaybina tirada kuu soo baxda ay waxay noqon doontaa phosphorus ay noqon doontaa soo soco kan adiga laga rabo inaad ka shaqaysid ciwaanku ustaad wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo drawback of the Brino trade ciladihii uu lahay 3Dskii uu sameeyay ninka lagu magacaabo trades wuxuu sameeyay wax la yiraahdo trade 1 trade 2 trade 3 ayuu sameeyay soo mahayn ciladihii uu lahay marka tusaale saddexdan nin aan ka hadli doono waxaan soo qaadi doonaa wax la yiraahdo Henry Moseley waxaan ka hadli doonaa nin lagu magacaabo law of active iyo nin la yiraahdo Mendeleev oo ah aabaha periodic table-ka intaas afartaas ayaa inta badan meesha uga hadli doonaa marka afartooda mid ayaan rabaa inaan uga hadlo marka midkan hadda aan taagano the Brenner la dhaho oo dhashay waddanka Germany cilada ayuu yeeshay drawback of the Brenner trade classification abalbalaynti uu ka sameeyay ciladii maxaa kamid ah could explain only kaliya wuxuu sharaxay three trade saddex trade uu sharaxay from the elements curyaasha known at that time curyaashii waqtigaas la yaqaano dhan wuxuu ka sharaxay saddex trade saddexda trade wuxuu dhahay qolo waa trade 1 oo group 1 oo ka soo qaatay saddex curye iyo trade 2 oo ka soo qaatay group 2 oo tusaale ahaan kale calcium iyo barium strontium soo qaatay tusaale ahaan kale group 7 wuxuu ka soo qaatay saddex chlorine iyo bromine iyo iodine oo ka soo qaatay oo 3 iyo 1 oo kala sameeyay marka curyaashii waqtigaas laga saddex trade oo asaga ka hadlay oo kaliya laakiin way ka badnaayeen sheekadu intaas waa ka badneed waxaa jiray many elements curyaal fara badan haafin leh similar property astaamo isku mid ah waxaa jira curyaal fara badan oo astaamo isku mid leh that could not eat into the Dobrina law of trades laakiin uusan ku soo darin xeerka Dobrina law of trade macnaha waxaa jiray curyaal fara badan oo lahaay wax la yiraahdo similar properties astaamo isku mid ah waxay lahaayeen astaamo isku mid ah similar properties astaamo isku mid ay lahaayeen laakiin maxaa lagu soo daray waxaan lagu soo daray sharciga maxaa lagu soo daray sharciga la yiraahdo Dobrina law of trade ayaa lagu soo daray dawadaha qiimiga badano haddii casharka aad ka heshay fadlan subscribe saar like tana nagu dhiirigeli gomboleelka la saaro si casharada ku xigay kugu soo dhacaan